mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee degmada Balad Xaabe ee gobolka Gada ayaa maanta doortay nabadoon cusub oo hogaamin doona. Shariif Axmed Taajir ayaa warkan inoo soo diray. munaasabadan oo ahayd cali masaarka nabadoon aadan cali dayday ayaa waxa ay ka qabsoontay degmada Balad Xaabe ee gobolka Gado iyadoona xafladda cali masaarka nabadoonka ay ka soo qayb galeen mas'uuliin ka tirsan maamulka degmada Balad Xaabe odayaal dhaqameed culimada iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada. waxaana ugu horeyn munaasabada cali masaarka nabadoon aadan cali daafuray madaxa arrimaha bulshada degmada Balad Xaabe ee gobolka Gado Cabdiqaadir Xuseen Ibraahim isagoona sheegay in ka maamulhayn ay soo dhaweynayaan nabadoonka isla markaana ay la shaqeyn doonaan. intaan kadib nabadoonka ama isinka la dooranayo waa uu dardaaran iyo duco u baahdanahay marka koobaad anaga ka maamul ahaan waxyaalaha dhaqanka Soomaaliyeed ay sameeysanayaan ama beelaha sameeysanayaan waxyaalaha siyaasadda ka mid maaha mar walba ka maamul ahaan waa inaan kula shaqeynaa mar walba aan dhageysanaa oo u dhaganuglaana ka maamul ahaan iyo siyaasadda dawladeed waxay tahay in rabitaanka beelaha iyo duubabkooda iyo rabitaankooda aan kula shaqeyno soo dhaweeyo saawgeed waxaan si buuxda u soo dhaweynaynaa duubka ama dhaqanka halkan maanta lagu duubayo insha Allah ta'ala anigoo ku hadlayo codka islaamka kan salaadiinta kan beesha aan ka soo jeedo ee aan kaligeed aan u ahayn suldaanka waxaan si buuxda u soo dhaweeyay una taageernay kulana shaqeynayna nabadoon macallin aadan cali cabdi oo ah nabadoon islaam Soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay war ku mahadsantihiin waana in la qaadanay si buuxda inaan la shaqeynano waxaan soo dhaweynaynaa nabadoonka cusub ilaahay waxaan uga baryaynaa hawsha loo igmaday oo ballaaran ilaahay inuu fududeeyo hawl sahlan ma aha haddaan ilaahay kuu fududeynaa waa culeyskeeda leedahay anigaan hadda hor taagan maantay muddo 2 bilood laga joogo yaa xilkaan ii magacaaba xilkaan anigoo ninkaas waakayo macallin aadan ah waa raggaan isa jaanqaadi doona insha Allahu ta'ala waxaa lagu caleema saarayaa nabadoon dhaqan sideedana nabadoonka dhaqanka hadallada meesha laga soo jeediyo way iska kooban yihiin anigoo ah nabadoon Idris aadan Gaaroodi aad baan u soo dhaweynayaa nabadoonka maanta la keenay macallin aadan waan soo dhaweynayaa horena waan u wada shaqeyn jirnay haddana si wanaagsan baan u wada shaqeyn doonaa. ugu dambeyntiina nabadoon aadan cali oo soo xiray munaasabada cali masaarkiisa ayaa soo dhaweeyay xilka culus ay u doorteen beeshiisa isagoona tilmaamay inuu u adeegi doono si cadaalada bulshada hoggaanka u dooratay. tan kale waa sida loo sheegay haddii ilaahay uu garab galo xilka Allah iyo fududeeyo fadhali uu qalmeeyo ma ihil ama reecha macawre hawraarsamo waa xil Soomaaliyeed intaba haddii ilaahay uu garab galo waxaan rabaa inaan ka qayb qaato samaan lana shaqeeyo nimanka iga horreeyay oo ugaasada iyo salaadiinta iyo raadkooda aan maro aan kaalmeeyo wiilkooda aan wixii wanaago usoo jiidahayo wanaag baan kaalmeynaya haddii ilaahay laga weeyahay baan ahay alxamdulillahi rabbil caalamiin in badan way islaamahay. Shariif Axmed Taajir, Jubaland TV, Balad Xaabe.